Finland waa waddan dhaca waqooyiga Yurub oo xuduud la leh Sweden, Norway iyo Ruushka, caasimaduna waa Helsinki. Finland waxay ka mid tahay waddamada ku yaala waqooyiga fog ee adduunka. Tirada dadka Finland waxay gaarayaan qiyaastii 5,518,000 oo qof. Halkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa xaqiiqooyin ku saabsan waddanka Finland. Nidaamka waxbarashada ee Finland waa mid ka mid ah nidaamyada waxbarasheed ee ugu fiican dunida. Ummadaha kalena waxay ku dadaalayaan inay ku daydaan qaab dhismeedka waxbarasheed ee Finland, sida mushaarka macallimiinta oo aad u sareeya, waqti badan oo fasax ah, isla markaana xoogga ma saaraan homework-ka imtixaanada. Finland waxay leedahay mid ka mid ah baasaboorada ugu awoodda badan dunida, haysashada baasaboorka labaad ee ugu wanaagsan adduunka, sida lagu sheegay webka Passport Index. Tani waxay ka dhigan tahay in dadka haysta baasaboorka Finland ay booqan karaan inta badan waddamada adduunka fiisa la'aan. Finland waxay ku jirtaa kaalinta koowaad inay tahay dalka ugu farxadda badan adduunka. Warbixintii ugu dambeysay ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in Finland ay tahay dalka ugu farxadda badan adduunka. Finland waxay leedahay keymo iyo harooyinka ugu badan Yurub. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay in Finland ay leedahay kumanaan harooyin. Sidoo kale waa dhul ay ku yaalaan kumanaan keymo ah. Ku dhawaad 75% dhulka Finland waa keymo. Dadka Finland waxay u dabaaldegaan maalinta fashilka markay taariikhdu tahay 13 Oktoobar sanad kasta, waxayna soo bilaabatay sanadii 2010. Markiiba waxay noqotay mid aad caan u ah. Maalintaa dadku waxay ka sheekaystaan sheekooyinkooda ku saabsan guuldarrada iyo sida ay uga adkaadeen. Dalka Finland waxaa aad loogu cabaa caanaha. Waa dal aad u isticmaala caanaha marka qof loo xisaabiyo. Sidoo kale dadka Finland waxay qabatimeen cabista kafeega. Finland kaalinta koowaad ayay ka gashay liiska 10 dal ee ugu isticmaalka badan kafeega adduunka oo dhan. Sidoo kale way adag tahay in la qiyaaso inta koob ay isticmaalaan sanadkii, laakiin celcelis qofka Finlandeeska wuxuu isticmaalaa qiyaastii 12 kiilo oo kafee ah sanad kasta. Ammaanka dalka Finland waa mid ka mid ah dalal dhowr ah haddii boorso ama moobil kaa lumo ay u badan tahay in dib lagugu soo celiyo. Finland waxay ka mid tahay waddamada ugu sarreeya adduunka oo dhan marka laga hadlayo dib u warshadaynta balaastikada. 9 ka mid ah 10 shay ee balaastika ka samaysan ee waddanka Finland dib ayaa loo warshadeeyaa. Waxyaabaha ugu caansan dalka Finland ay dunida ku soo kordhisay waxaa ka mid ah sida moobilada Nokia ama telefoonka Nokia, geemka lagu dheelo moobilada ee Angry Bird, iyo qalab lagu qiyaaso garaaca wadnaha oo gacanta lagu xiran karo haddana batari ku shaqeeya.